رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. أخبر عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. wuxuu cabdiraxmaan ibni alxaaris ibni haashim u sheegay marwaan ibni alxakam waaligii madiine in caaisha iyo ummu salama radia allahu canhumaa waa xaasaskii nebiga labaduba ee sala allahu calayhi wasalam ay u sheegeen in rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu haleeli jiray fajrigu isaga oo janaabo ehelkiisa ah qaba markaas kadib ayuuna qubaysan jiray waana soomi jiray. bukhaari iyo muslim ayaa labaduba wariyey. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.